hagaajiye hagaaji hore loo yiri qalabkan ama dukaankan hagaajiye oo ku cusub gobolka Togdheer degmada Burco oo baraaj kalena ku leh caasimada Soomaaliland ee Hargeysa waxyaabo fara badan oo bulshada reer Soomaaliland ay u baahan tahay ayuu inaga kaabaya waan ognahay waxaan la soconaa casrigan cusub tiknoolajiyada cusub ee dunida ku soo korodhay oo baahiyaha ay u baahanahay qayb ka ah sida daraadeed moobilada oo kale waxay noqotay noloshii bay noqotay qayb kamid ah cilado fara badan baa nolosha ku yimaada moobilada marka sida uu sheegay ministirka goobtan hagaajiye waxyaabihii dabadda magaranaysaayay loo doono jiray ciladihii moobilada ku dhici jiray maxaa ku dhahdaayay dhibaatooyinkii bulshada ka haystay moobilada ee jabniinka ugu weynaa ayaa waxaa ka mid ah cilad saarista muraayadaha iyo bedelaadaba cilad saarista kamaradaha moobilka iyo bedelaadooda cilad saarista iyo bedelaada bateriyada moobilada nooc walba ah oo original ah cilad saarista biyo gelista moobilada moobilka markuu biyo ku dhaco halku baad keenaysaa insha Allah taala cilad saarista software-ka iyo up to date-ka cilad saarista signalka lumay ama tagay cilad saarista iyo sameynta sameecadaha iyo mikrofoonada waxaan ku yiraahdaa cilad saarista iyo bedelaada keyboard-ka ama magaranaysaa baalka wax laga qoro cilad saarista programka moobilka qalabaynta dayactirka iyo qurxinta moobilada oo idil dhamaantood ugu dambeyn jimita passwordada waxyaabo kale fara badan baan hagaajiye ku soo kordhiyay aad iyo aad baa lidin soo dhaweynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الرحمن الرحيم hagaajiye waxa weeye xarun cusub oo laga furay magaalada Burco dhalinyarada gobolka Togdheer waxaan leeyahay ku soo dhawaada qiimo jaban iyo qalab wanaagsan oo meesha yaala marka ku soo dhawaada in leeyahay hagaajiye waxa soo dhaweynaa maharadan hagaajiye ee laga furay gobolkeeni waa wax lagu soo kordhiyay aan u baahnayn moobilo badan dadku ka cabanayeen imka waa la hagaajinaya muddo kooban bay soconaysaa inta ay fariiga tahay Waalaikum warahmatullaahi wabarakaatuh anoo ku hadlaya afka dhalinyarada isboortiga gobolka Togdheer aad baan u soo dhaweynaynaa meherada cusub ee hagaajiye runtii aad iyo aad baan uga faa'iideysanaynaa haddaanu nahay dhalinyarada 3 bilood baa ay ka xumaadaan moobiladu Janiska 7 cisho in lagu kordhiyana waan jecelahay insha Allah Abdullaah ka dhigo aad iyo aad baad mahadsan sallallahu alayhi wasallam ugu horeyn Ilaahay subhanahu wa ta'ala mahadle saaka waxaan joognaa meherad cusub oo lagu soo kordhiyay gobolka Togdheer oo casri ah oo la yiraahdo hagaajiye smartphone runtii haddaan nahay dhalinyarada gobolka Togdheer waa meherad aad iyo aad aan baahi weyn ugu qabnay waayo imika waxa loo isticmaalaa oo casrigan imika ugu badan wax la yiraahdo maaragtay social media haddii Facebook noqoto haddii ay waxyaabo kale oo casriga noqoto runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa aadna waan u soo dhaweynaa waan ku faraxsanahay mulkiilayaasha shirkadana waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin adeegana noo soo kordhiseen waan inaga mahadnaqaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وقورين الله سبحانه وتعالى يا مهادون سكلا وعن سلوينا مهردا قالقا حاجاتية مركا التكنيشن كاي مكان ساعة حاجة فرصة سمارت فون كا كمبيوترز كا أبديت كودون مركا سمينا سا مركا وعسو كل شيء لأن يرى عاديات محصن ودياس برا عمق ربطشوجا وجوال كنا عسو كل شيء ورا برانش كلا بعد الجفرو جوال كتقدر برانش كوينه حركة وترك عينه كويا عاصمة Soomaaliland Hargeysa runtii waa wax lagu farxo mar hadii ganacsigaaga ama kumashkaaga aad wax friya ka furto oo bulshaduna wax u taro ah ay yihiin dad u dhashay gobolkan oo ah qurbo joogtii gobolka Togdheer ka dhalinyar ahaan aad iyo aad baan soo dhaweynaa bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayyidina Muhammad dhamaan waxaan salaamayaa madaxda meesha isugu timi ee ganacsatada gaar ahaan waxaan gaar u salaamayaa mulkiilaha diasporada ee inoo soo kordhiyay habkan casriga ah ee Burco ku cusub waxaan leeyahay ilaahay meherada ha ku barakeeyo
ilaahay camalkaagana ha ku ansixiyo oo ku saalixiyo waan u baahnay runtii meheradaha noocan oo kale ah gobolka togdheer way tabaysay in dhalinyarada moobiladan iminka dee aadka mushkilaadka nagu haya ee dhinacna faa'iidada ka ah ee aadka nagu soo batay wax u hagaajiya aad iyo aad baynu ugu baahneen waynu mahad celinaa mulkiilaha aad iyo aadna waa mahadsantihin anigoo ku hadlaya afka odayaasha dhallinyaradii hadasaye waanu baarigaynaa meheradan cusub ee laga sheekeeyey ee wanaagsan mustaqbalka dhallinyarada iyo daneeyaashaba u wanaagsan waanu soo dhoweynaa waanu leenahay waanu ku ducaynaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ugu bashaareynaa dhammaan bulshada togdheer in loo furay xafiis cusub oo la yiraahdo hagaajiye smartphones services and accessories. xafiiskaas oo ah hagaajiye symbol waxa laga yaabaa dad badan ciyaalnimadii inay maqli jireen wax la yiraahdo hagaajiye haddaad hagaajin weydid ayaa kala hagaajin hagaajiye wuxuu ka shaqeeyaa waxa weeyaan mobilada iyo all smartphone devices oo dhan oo uu ku repairgareynayaa haddii LCD tahay haddii water damage tahay noocay doontaba ha ahaatee hagaajiye waxa kaloo kuu qabanayaa oo ay kaga maarmaysaa gobolka togdheer muddo badan baynu maqlaynay dadkoo leh foonkan ha la qaado hargeysa ha la geeyo london ha la geeyo dubai ha la geeyo maanta waxaanu ku faanaynaa aanu ku faraxsannahay inaynu hayno qalabyadii loo baahnaa oo dhan oo lagu sameynayay nooc kastaba ha ahaadaane oo foon kasta lagu habeynayay iyo accessories-keedii amase birihii yaraana ay u baahnayeen oo hawsha lagu qabanayay sidoo kale waxaanu haynaa niman ku takhasusay oo iyaguna Soomaali iyo ajnabiba leh oo inoogu sameynaya on the spot oo haysta qalabkoodii on the spot waxaan uga jeedaa goobtii inagoo joogan taa waxaan ku sii daraynaa hagaajiye smartphone services and accessories wuxuu ku qabanayaa adeegiisa kamida oo at the moment waliba aad dadku u xiiseynaya waa bilaash wixii qalaba oo aad gaar u iibsanaysid mooye qacantu absolutely waa bilaash wax lacag loo charge gareynaya ma jirto waxaananu imika bilaash ka dhignay 7 casho hase yeeshee haddii ilaahay ka dhigo maadaama aanu nahay dhallinyaradii togdheer kuna soo noqonnay dalkayagii iyo dhulkayagii doonayna inaanu wax dhiftan oo samayno waxaanu jeclayno ka sii badino 7 casho oo aanu ka dhigno bil ama bil iyo badh ama 2 biloodba si ay dadku uga faa'iideystaan oo horta ciladahan iyo waxaan inagu taagan ay naga yara kala degaan ka bacdina aynu caado wada shaqeyno horeba u sheegnay wuxuu hagaajiye idinku bushaareynaya laga bilaabo minidka in meheradu furan tahay